Mas'uuliyiinta shirkadda Toyota ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa baaritaano ay ku sameynayeen badeecadaha ka soo dega takada weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen 1,000 kiish oo raashin ah kuwaas oo ku soo halaabay gudaha badda iyadoona ay tilmaameen inaysan isticmaali karin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo. maareeyaha takada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa waxa uu ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta shirkadda Toyota shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada isagoona faahfaahiyay raashinkani ku soo halaabay gudaha badda. alaab shixnadaas oo ah bariis loogu talagalay in la siiyo dadka gaajada hayso oo dadka abaaraha ku dhacay. alaabtaasi marka waxay noqotay alaab dhacday markii la baaristii ay sameysay qolada quality controlka ee Toyota Jubbaland. alaabtaasi waxay noqotay alaab aan sax ahayn oo dheedkeedii iyo sideediiba eberba ah. marka Jubbaland waxaa kaga degsan marka alaabtaasi in dadka aysan waxyeelayn, alaabtaasina in la gubo. sidaa darteed qolada ganacsiga qoladii kale shaqada ku lahayd intiba wasaaradii intaba waa la gubaya insha Allah taala. hadeerna alaabtii way u fasaxayeen inay qaadaan ay geeyaan meeshii lagu gubi lahaa si loo xakameeyo isla markaasina looga hortago raashinka dheedkooda uu dhacsan yahay ayaa taliyaha amniga ee takada Kismaayo Dalmar Maxamed Maxamuud waxa uu tilmaamay inay la shaqeyn doonaan mas'uuliyiinta shirkadda Toyota si looga hortago waxyaabaha dhibaatada u keenaya bulshada Soomaaliyeed. ku guuleystay inay qabataan raashin samaysan isla markaasina maxaan ku dhahay bulshada maxaan ku dhahay khatar ku ahaa barnaamijkiina maxaan ku dhahay raashinkiina waa la soo qabtay waa kana arkaysan halkan lagu gubayaa. waxaan markaas diyaar u nahay inaan maxaan ku dhahay haddana ciidamada amniga iyo guud ahaan maamulka dekedaba in wax kastoo bulshada ku ah khatar in saas looga hortago isla markaasina maxaan ku dhahay bulshada laga gaaro. maamulaha shirkadda Toyota ee dowlad goboleedka Jubbaland Cumar Cabdi Ibraahim oo dhankiisa ka hadlayay goobta lagu gubayay raashinka dheedkooda uu dhacsanaa ayaa waxa uu tilmaamay waxaan halkan ku gubaynaa oo nala aragtaan raashin badan oo dhacay oo aan ka soo qabanay dekada caalamiga ee Kismaayo. raashinkaas oo runtii dhib badan ku noqon lahaa ummadda haddii ay u geli lahaa oo dadku cuni lahaayeen. taas waxaanu rabnaa markaasaan horeyba u sheegnay dadka raashimada keena ama cuntooyinka keena wadanka guud ahaan gaar ahaan Jubbaland hadday ganacsato tahay iyo hadday samafal tahayba inay ka taxadiraan waxa ay keenayaan, ogaadaanna inay jirto shirkad hubinaysa tayada wax kasta oo dhulkan soo gala khaas ahaan maamulka Jubbaland. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka Kismaayo.